waxaa lagu tilmaamaa ninkan suurtagalka ahayn maadaama Israa'iil raadinaysay in ka badan 30 sano soo kale warbaahinta Israa'iil waxay ku tilmaamaan ninka 9 nafood maadaama shirqoolaad fara badan loo dhigay inta uu ka badbaaday waxaana la aaminsan yahay inuu yahay ninkii ka dambeeyay in Israa'iil gantaalada fara badan lagu weeraro maalinkii dhaweyd ee iskoormaadku ka dhacay Falastiin sababtoo waa ninka ka dambeeyay ee farsameeyay gantaalaha Hamas ninkan muuqaalkan maanta kaga hadlayno magaciisa waxa la yiraahdaa Maxamed Adayf shirqool Israa'iil u dhigtay sanadii 2014 oo rabtay inay ku disho uu ka badbaaday laakiin waxa ku geeriyooday xaaskiisii iyo carruurtiisii dhammaan waxaana yahuudu moodayeen inuu isaguna la geeriyooday ciyaalkiisii xaaskiisii laakiin lama geeriyoon uu ka badbaaday shirqoolkaas guushi dhawaa sanadan 2012 ay Falastiiniintu yahuudda ka gaareen magaca Maxamed Adayf wuxuu ahaa magaca ay Falastiiniintu ku dabaaldegayeen ay ku dhawaaqayeen warbaahinta Israa'iil xataa way hadalhaysay oo waxay sheegeen ninka ugu halista badan inuu yahay Hamas oo dhan sirdoonka yahuuduna in badan uu raadinayeen laakiin maskaxay ku soo qabtaan ay waayeen muddo badan oo Muslim Maxamed Adayf kadib codkiisa waxa la maqlay sanadda 2012 markii ay iskoormaadka isla galeen Falastiiniinta iyo yahuudu waxaanu dhahay ma noqon doono qaar gacmaha is saarto daawada Falastiiniinta lagu xadgudbay weyn wada aragnay dhamaanba gantaale fara badan lagu duqeeyay magaalooyinka yahuudu deganay muddo dagaalku socday kaliya waxay Israa'iil khasaartay ka badan $2 bilyan oo dollarka Mareykanka Israa'iil waxay isku dayeen in shirqoosho ninkan sanadii 2014 laba jeer soo kala sanadii 2002 2003 2006 laakiin inta bay ku guul dareysteen inay shirqoolaan ama isku dayeen inay soo qabtaan mar walba isaga ay ka guuleysanay oo xaalada kaga baxsanay in ka badan 5 jeer ayuu halis u galinay sirdoonka Israa'iil gacanta ku dhigan laakiin way suurtagal weyn warbaahinta Israa'iil waxay ku tilmaamaan ninkan inuu quwadan caadi ahayn leeyahay macnaha quwadan filmaanta ku daawano kale waxaanu ninkan awood ah leeyahay inuu dhulka hoostiisa gudaha ku noolaan karo soo wax tiknoolajiyada ama isgaarsiin adeegsanaynin sirdoonka Israa'iil caqabad ay ku noqotay ninkan taxraacaan ama marna isku dayaan inay ogaadaan meeshu joogo haddii tusaalahaan aad maqasho Maxamed Adayf ninka la yiraahdo nin taxadar badan aqli badan rumayso sababtoo waa mid aaminsan xataa yahuudda laftirkooda Maxamed Adayf dagaalyahan aad u halis badan soo kala abaabulaha dagaalada wax iska caabinta warbaahinta Israa'iil waxay sheegaan in dagaal walba Gaza ka dhaca amarkiisa uu leeyahay Maxamed Adayf halista iyo warwarka badan sayidka uu ku hayo Israa'iil ninkan uu dareemi karna marka Israa'iil ninkan waxa xidhay sanadii 1989 maray ku tuhmeen arrimo la xiriira Hamas laakiin markii uu iska soo daayeen waana waxay ka qoomayaan iminka muddo 30 sano laga joogo waana ninka ka dambeeya gantaale maanta lagu duqeeyay Israa'iil Hamas Maxamed Adayf kor waxay haayeen wax iska caabiyal oo fudud haysta laakiin si kadib waxay noqdeen wax iska caabiyal hubaada culus haysta oo kamid yihiin gantaalaha ridada dhaadheer Hamas waqti xaadirkan military waxa maraanto oo hubkooda gacmooda ay ku farsamaystaan wadamo badan oo Carbeed oo dhaamaan iyagoo waliba dhinac walba ka go'doonsan oo loo diiday wax walba oo hub laga sameyn karin ee Gaza galaan Maxamed Adayf waxyaabaha hindiso waxa kamid ah drone ama diyaaradahan cidna wadin iyo sidoo kale gantaalaha ridada dhaadheer ee Hamas haysato waxa kamid ah gantaal ugu magac daray saaxiibkii oo yahuudu dishay 1995 oo Ayaash lagu magacaabo gantaalkan Ayaash la wuxuu gaarayaa in ka badan 250 kilomitir waxaanu dhashay Maxamed Adayf sanadii 1965 reer ka soo guuray dhulka yahuudu qabsatay degtay ee qasabka kaga saartay Falastiiniyiinta dadka Maxamed Adayf ka agdhow waxay sheegaan in Maxamed Adayf yahay nin degan aan hadal badnayn oo ku mashquulsan farsamaynta hubka militariga muuqaalkan maanta intaas uu nagu yahay fadlan haduu ku cajabisay subscribe saar fikirkaaga hoosta nagu reeb commentiga wassalaamu calaykum